Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Lesson 10 based on ku salaysan if buu ku salaysan yahay. About ku saabsan if buu ka hadlaya. Present iyo future time. If you break this window, haddii aad jebiso daaqadan, you will have to pay for it. Waa inaad gudaa. If you break, haddii aad jebiso this window daaqadani, you will have to pay for it. Waa in aad gudaa. If you don't hurry, haddii aadan soo dhaqsan, we shall miss the train. Waxaan seegi doonaa trainka. If he falls, haddii uu soo dhaco, he will hurt himself. Naftiisa ayuu waxyeelay doonaa ama quddiisa ayuu dhaawici doonaa. If it rains tomorrow, haddii uu beri uu da'o, we shan't go to the seaside. Xeebta ma aadi doono. If you feel better, haddii aad dareento fiicnaan ama roonaasho, you can get up. Waad kici kartaa. If he sells that car, haddii uu iska gado gaarigaas, he can buy a new one. Wuxuu iibsan karaa ama soo gadan karaa mid cusub. If you flunk the exam, haddii aad ku dhacdo imtixaamka, you will do it again. Mar kale ayaad samay doontaa. If you help the poor, haddii aad caawiso masaakiinta, Allah will help you. Allah ayaa ku caawin doono. If he tells us the truth, haddii uu runta uu noo sheego, we shall release him. Waynu sii day doonaa. If I get a job with good salary, haddii aan helo shaqo mushaar fiican leh, I shall save up. Waxaan keedsan doonaa my money, lacagtayda. Lesson 10 about ku saabsan if haddii. If you break this window, haddii aad jebiso daaqadani, you will have to pay for it. Waa inaad bixisaa ama aad gudaa. Pay for it. If you don't hurry, haddii aadan soo dhaqsanin, we shall miss. Waxaynu seegi doonaa ama waayi doonaa the trainka. If he falls, haddii uu soo dhaco, he will hurt himself. Naftiisa ayuu waxyeelay doonaa. If it rains tomorrow, haddii uu beri uu da'o roob, we shan't go to the seaside. Xeebta ma aadi doono. If you feel better, haddii aad dareento roonaan ama fiicnaasho, you can get up. Waad kici kartaa. If he sells that car, haddii uu iibiyo ama uu iska gado gaarigaas, he can buy. Wuxuu soo gadan karaa a new one, mid cusub. If you flunk the exam, haddii aad ku guuldaraysato imtixaamka ama aad ku dhacdo, you will do it again. Mar kale ayaad samay doontaa. If you help the poor, haddii aad caawiso masaakiinta, Allah will help you. Allah ayaa ku caawin doono. If he tells us the truth, haddii uu runta inoo sheego, we shall release him. Waynu sii day doonaa. If I get a job with good salary, haddii aan helo shaqo mushaar fiican leh, I shall save up. Waxaan keedsan doonaa my money, lacagtayda. Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Lesson about if. If you break this window, you will have to pay for it. If you don't hurry, we shall miss the train. If he falls, he will hurt himself. If it rains tomorrow, we shan't go to the seaside. If you feel better, you can get up. If he sells that car, he can buy a new one. If you flunk the exam, you will do it again. If you help the poor, Allah will help you. If you help the poor, Allah will help you. If he tells us the truth, we shall release him. If I get a job with good salary, I shall save up my money. Thanks. ألف لخردبي ألف لوسدبي ألف لأقودي ألف لخردبي ألف لغري